bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka saddexaad ee taxanaha qubanaha Barrow Show oo caawa aan idinkugu hayo qodobo aad iyo aad xasaasi ah marka la fiiriyo mowduucyada ay kor istaagayaan waa 10ka bisha May sanadku waa 2025 qodobada aan idin hayo waxa kamid ah iyadoo dawladaha Hindiya iyo Pakistan ay ku dhawaaqeen in xabad joojin degdeg ah ay qaateen maanta oo Sabti ah sida dawladda Mareykanku ay sheegtay isla markaana ay ku dhawaaqeen wasiirada amuraha dibadda ee labada dal haddana waxa lagu soo waramayaa in caawa weerar lagu qaaday gudaha wadanka Hindiya magaalada Jammu ee gobolka Kashmir ee Hindiya xoogga ku haysato ayaa lagu soo waramayaa in diyaaradaha droniska ay duqeeyeen halka xuduudana ay ka dhacaan iskoorimaadyo xooggan waliba oo labada ciidan ay isweydaarsadeen ilaa iyo 30 dawladood ayaa ka qayb qaadanaya sidii labada dhinac loo wada hadal si lahaa xogtuna waxay tilmaamaysaa in wada hadalku uu si rasmi ah u furmi doono maalinimada Isniinta ah ee fooda inagu soo haysa iyadoo la filayo in dawlado dhaxdhaxaad ah la geeyo labada dhinac oo ay ku gardhigtaan haddaba meelaha caawa la weeraray maxaa laga yaqaanaa dawladda Pakistan maxay soo saartay Hindiya suuragal ma tahay tilaabooyinkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas inay ka jawaabto warbixin ayaan arrintaasi idinkaga hayaa dhinaca kale barnaamijka intaan wada joogno waxaan dul istaagi doonaa dawladda Shiinaha oo si weyn u basaastay dalka Hindiya intii dagaaladu ay socdeen 262 dayax gacmeed ayaa lagu basaasay wadanka Hindiya xogtaasina waxa ay si toos ah ugu dhacaysay ciidamada militariga ah ee wadanka Pakistan maxay tahay sababta Shiinuhu uu haddaba u basaasay wadankaasi Hindiya maxaa ka dhaxeeya Beijing iyo sidoo kale New Delhi waa Shiinaha iyo Hindiya maxaa kala socotaa dagaalkii dhacay sanadkii 1962 ee wali eeshiisu ay taagan tahay labadan wadan waa Shiinaha iyo Hindiya wali ka dhax taagan murankii Himalaya oo Kashmir soo gaaray warbixin ayaan arrintaasi idinka sii doonaa madhaba reer galbeedku markay ogaadeen dhaqdhaqaaqyada adag ee Shiinaha uu samaynayo ee dhinaca sirdoonka ah hawada iyo badda Hindiya in arrintaasi ay ku dhalisay inta reer galbeedka aysan ku fadeexoobin dagaalkaasi ka soconaya Kashmir in si degdeg ah loo qaboojiyo taasina ay qasabtay in 48 saac oo xiriir ah Donald Trump iyo madaxdiisu waa Mareykanka ee labada dhinac la wada hadlayeen warbixin ayaan arrintaasi idinka siin doonaa inagoo eegi doona ilaa iyo hadda Shiinaha iyo Ruushka oo xabad joojinta lagu dhawaaqay aan war ka soo saarin ma farba u laba Pakistan waa su'aasha caawa warbaahintu ay isweydiinayaan waxaan sidoo kale eegi doonaa dawladaha Carabta Sacuudiga iyo isutaga Imaaraadka Carabta oo boos ka raadinaya sidii ay ismuujin diblomaasi uga dhaxli lahaayeen xabad joojinta maanta lagu dhawaaqay maxaa wadamada qaliishka Carabtu ay hadda u doonayaan warbaahintooda inay samayso bomboonantii ugu badnayd sidee bay u waramayaan telefishinada Imaaraadku ay leeyihiin Sky News iyo Al Arabiya Sacuudiga sidoo kale ay qaybta ka yihiin qodobadaas ayaan dul istaagi doonaa saaxiibayaal oo arrimaha diblomaasiyadda iyo dagaalka ku saabsan Cabdilcasiis Barrow ayaan ahay soo dhawaada ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyo dhaqdhaqaaqyada ka taagan gobolka Kashmir sida caawa ay ku dhawaaqeen dad goobjoogayaal ah iyo dawladda Hindiya ciidamada wadanka Pakistan ayaa weerar ku qaaday deegaano kala duwan oo ku yaala gobolka Kashmir gaar ahaan qaybta ay xoogga ku haysato dawladda Hindiya warar halkaasi ka soo baxaya ayaa tilmaamaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Pakistaaniyiintu ay weerar ku qaadeen dhowr fariisimood oo ay ciidamada dalka Hindiya halkaasi ku lahaayeen waxaa la soo warinayaa in samada magaalada Jammu oo ah goobta ugu badan oo ay Pakistaaniyiintu weerareen laga dareemay qaraxyo waaweyn taas oo lagu arkay samada wadanka magaaladaasi isla markaana holac xoog la uu ka soo baxay magaalada Jammu ciidamada dawladda Hindiya ayaa ku jawaabay inay isku dayeen inay ka hortagaan weeraradaasi lama soo warin ilaa iyo hadda qasaare ka dhashay isku dhacaasi dhinaca Islaamabadna ma jiraan war ka soo baxay
wasaaradda gaashaandhigga waddanka Hindiya oo war soo saartay ayaa ku tilmaantay in dowladda Pakistan ay caawa markii ugu horeysay ku xadgudubtay xabad joojintii rasmiga ahayd ay dhinacyadani gaareen taasi oo la xiriirta dadaalada wadamada reer galbeedku ay bixinayaan ee la xiriira hanaanka nabadeynta iyo xal u helidda dagaalada ka aloosan gobolka Kashmir ee u dhaxeeya labada wadan ee ku hubeysan hubka nuclear-ka taasi oo hadda walaac ay ka muujinayaan madaxda wadamada reer galbeedka iyo kuwa khaliijku in dagaalkan uu aad u sii faafo ilaa iyo 30 dowladood ayaa qayb ka ah xabad joojinta lagu qanciyo dowladda Pakistan inay la qaadato dhinaca Hindiya New Delhi ayaa lagu waramayaa in dhinaceeda uu ka yimi xabad joojinta degdega in la qaato maadaama diyaaradihii dagaalka ee dowladdaasi Hindiya qaarkood hawada laga soo riday ciidamada dalka Pakistan ay la soo baxeen farsamo dheer oo casri ah dhinaca kale mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Hindiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in xuduudda rasmiga ah ee Kashmir caawa ay ka dhaceen iska horimaadyo xoog leh ciidamada waddanka Pakistan ayaa wali ku duulaya goobaha fariisimaha waa ciidamada dalka Hindiya taasi oo dhalisay in ilaa iyo 3 iska horimaad maqribnimadii caawa xilliga geeska Afrika ay ka dhaceen iska horimaadyada deegaanadaasi ma jiraan war ka soo baxay dalka Pakistan oo ku saabsan sheegashada waddanka Hindiya ee la xiriira inay dhibaatooyin kala kulmayso ilaa iyo hadda waddanka Pakistan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ra'iisul wasaaraha waddankaasi uu kulan qadka ama xiriir qadka taleefanka uu la sameeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee labada dal wasiirada amuraha dibadda ee wadamada Pakistan iyo Hindiya wadahadalladaasi ayaa la xiriiray in dowladda Imaaraadka Carabta ay waqtiga iyo dhaqaalaha ugu badan ku bixin doonto in labadan dal oo ay saaxiib soke oo istiraatiiji ay la tahay sida Sky News Arabiga ay ku warantay in ay ka shaqeynayso sida ay isku fahmi lahaayeen wasiirka amuraha dibadda ee dalka Pakistan ayaa caawa ku dhawaaqay in dowladaha waqtiga ugu badan ku bixiyay in xabad joojintaasi lagu dhawaaqo ay ka mid tahay dowladda boqortooyada Saudi Arabia oo garab ka helaysa waddanka Turkiga ee uu hogaamiyo Rajab Tayyip Erdogan markii ugu horeysay dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga ayaa aragti mid ka yeeshay xaaladda waddanka Pakistan labadan dhinacna waxa ay taageerayeen dowladda Pakistan ee Islamabad sida wararka la helayaba ay tilmaamayaan ilaa iyo hadda dowladaha reer galbeedka ayaa ku dadaalaya sidii ay arrintaasi xal ugu keeni lahaayeen telefishinka CNN ayaa caawa ku waramay isagoo helaya xogo sirdoon oo xasaasi ah oo ku dhow aqalka cad ee Mareykanka ee Washington in madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi DG Vance oo qadka taleefanka aad ugu la xiriiray ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo ku qanci waayeen xabad joojin degdeg la qaato dowladda Mareykanka ayaa markii ugu dambeysay lahjad adag ugu gudbisay dalka Hindiya in la qaato xabad joojinta isla markaana ay ku qasban yihiin xogaha amni iyo kuwa sirdoon ay helayaan Mareykanku in si degdeg ah arrintaasi ay ku qaataan dowladda Pakistan ayaa heshay garab iyo taageero weyn oo ka imaanayay waddanka Shiinaha ee hadda gobolkaasi ku yaala isla markaana kamid ah wadamada saameynta leh ee adduunka ugu awoodda badan arrinta ugu badan ee warbaahinta qaar caawa ay tibinayaan isla markaana laga soo xiganayo maxadka istiraatiijiyada ee lagu magacaabo IISS ee fadhigiisu yahay magaalada London ee waddanka boqortooyada midowday ee Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in dalkaasi Shiinuhu uu dalka Hindiya ku basaasay 264 kamid ah dayax-gacmeedyadiisa hawada sare ku jira marka laga soo tago 80 dhinaca militariga iyo tiknoolajiyada uu adeegsado inta kale ayaa waxay ka shaqeynayeen xog aruurin basaasnimo ah oo ka dhana dowladda Hindiya sida xogta maxadkaasi istiraatiijiyada ee fadhigiisu yahay London oo caawa ku dhawaaqay inta badan waxaa si weyn loo basaasayay goobaha ciidamada Hindidu ay degan yihiin xuduudda wadamada Pakistan iyo sidoo kale waddanka Hindiya diyaaradaha ciidamada Hindidu ay isticmaali karaan iyo waliba goobaha ay suuragal ka tahay in la weeraro oo dowladda Pakistan ay leedahay
arrimahaasi waxaa sabab u ah baa la yidhi maadaama dowladda Pakistan ay isticmaalaysa diyaaradda J-10 oo ay soo saarto waddanka Hindiya in qalabkeeda tiknoolajiyadu uusan noqon mid ku fashilma dagaalka. arrintan waxa ay soo dadejisay in wadamada reer galbeedku ay si degdeg ah xabad joojin ugu dhawaaqaan maadaama la ogaaday sidoo kale in maraakiibta waddankaasi Pakistan ee qaarkood iska dhigay aan ilaahdee Shiinaha oo qaarkood iska dhigaya kalluumaysato ay ku soo dhawaadeen Hindiya iyagoo ka war dhowraya ciidamadeeda badda. arrintan ayaa laga baqdin qabay in xaaladdu ay uga sii darto maadaama dhibaatooyin xoog leh ay ka dhici karaan haddii xaaladan basaasnimada dowladda Shiinaha ay sii wado. Mareykanka ayaa markii xogtaasi la ogaaday sida maxadka IISS ee dalkaasi Ingiriiska uu caawa baahiyay ay si degdeg ah u farageliyeen dagaalkaasi in la qaboojiyo isla markaana labada dhinac ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka. dalka Pakistan ayaa la ogaaday dagaalka in uu ku guuleysanayo isla markaana uu kaga gacan sareynayo waddanka Hindiya haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto. taasi waa mid ay u badan tahay xogta caawa telefishinka CNN uu baahiyay la xiriira in Narendra Modi lagu qanciyo in xabad joojin degdeg ah uu qaateen arrimahaasi ay salka ku hayaan. reer galbeedka ayaa dagaalka Kashmir waxa ay kaga tusaale qaadanayeen waxa dhici karaya haddii la weeraro jasiiradda Taiwan ee Shiinaha iyo Mareykanku ay hadda sida weyn isugu haystaan la xiriirta in Shiinaha Taiwan uu arko jasiirad dalkiisa ka tirsan halka Mareykanku uu raadinayo in Shiinaha ay ka madax banaanaato. maalmihii ugu dambeeyay sida la socoteen xogaha sirdoonka iyo waliba wararka amniga ee warbaahinta waaweyn ee adduunku ay qorayeen Mareykanka ayaa jasiirado ku dhow Taiwan ku daabulaya hub xoogan taasi oo ugu dambeyntii dhalisay in dowladda Shiinaha xitaa warar hanjabaada ay u gudbiso dalka Japan ay deriska yihiin. haddaba waxaa la isweydiinayaa sababta intaas oo dayax gacmeed sababta uu dalka Shiinaha ugu basaasay waddankaasi Hindiya ee dagaalku kala dhaxeeyo waddanka Pakistan. xuduudda u dhaxaysa wadamada Shiinaha iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Hindiya ayaa waxay gaaraysaa 3,800 kilomitir waana dhinaca Himalaya. labada wadan ayaa u dhaxeeya xiriir khilaafaad xoogan oo dhinaca muranka xuduudda la xiriira kaasi oo soo bilowday dabayaaqadii 1950-yadii halka sanadkii 1962-kiina Shiinaha iyo dalka Hindiya oo iska horimaad kooban ku dhaxmaray xuduudda. arrintaasi ayaa sabab ka dhigtay in dowladaha Pakistan iyo dalka Shiinaha ay noqdaan saaxiib istiraatiiji ah oo gobolkaasi ku wada yaala waxaana dalka Hindiya oo hadda xiriir suka la leh reer galbeedka ay dareemaysaa cadaadiskii ugu xooganaa taasi oo dhalisay dagaalkii Kashmir in diyaarado fara badan looga soo rido. akhyaarta nala socotay qaybtan iyo barnaamijka Barrow Show caawa qaybtan intaas ayaan ku hakinayaa si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-kan oo subscribe saara aad baad u mahadsan.